gabar u dhalatay Kenya oo muslimad ah ayaa ka shakiisay sida ay ku soo islaamtay. Waxay tiri waxaan aad isugu xumaanay ninkaygii ugu dambeyn waan kala tagnay. Habeen aniga iyo gabadhayda oo 3 jir ah oo hurdno ayuu guriga u soo dhacay. Kadibna wuxuu si hoog iga qaatay gabadhayda meel uu la aaday waan garan waayay. Muddo 4 sano ah ayaa maalin walba iyo habeen walba raadinayay. Oohin way iga dhamaatay. Maalin anigoo joogo Mombasa ayaan waxaan maqlay dhawaaq ka yeeraya masaajidka ay muslimiinta leeyihiin. Waa aadaanka salaada. Gudaha ayaan u galay oo waxaan la kulmay imaamka masjidka. waxaan weydiistay inuu Alle ii baryo maadaama 4 sano aan isa baryayay wax jawaab ah waan ka waayay. Wuxuu igu yiri haddii aad islaamto Ilaahay ducadaada ayuu aqbalaya waayo waxaad tahay qof aan wax dambi lahayn. waxaan ku iri haddii aan islaamo ma gabadhaydii ayaan helayaa. Wuxuu igu yiri insha Allah waad helaysaa waayo Ilaahay unbaa og gabadhaada meesha ay ku sugan tahay. waxaan qaatay shahaadada oo halkii baan ku islaamay. imaamkii ayaa ka istaagay masaajidka. wuxuu yiri Ilaahay u barya walaasheena inuu gabadheeda u sahlo. dhammaan dadkii oo dhan Ilaahay bay ii baryeen. maalintaas ma helin gabadhaydii laakiin waxaan helay markii ugu horeysay dad ila murugooda oo xanuunka ii hayay ila dareema. dad isoo waca oo iga baraysta xaaladeyda iyo inaan helay gabadhaydii. muddo bil iyo 10 bari ayaan ducaysanayay oo aan Ilaahay weydiisanayay inuu mar i tuso gabadhaydii. Allahu akbar ayay tiri ducadeydii baa Ilaahay ii aqbalay. waxaan shaqo u tagay tuulo u dhow Mombasa. shirkad telefoonada samaysa ayaan la shaqaynayay. subax barqo ah ayaan waxa yimid masaajid meesha ku yaalay inaan 2 rakac tukado oo aan ducaysto. markaan soo galay masaajidkii ayaa waxa hal mar hindhahiga qabtay ninkaygii hore oo gabadhayda igala soo dhuuntay. waan naxay haddana waan farxay. waxaan ku iri ma adigii baa aaway gabadhaydii. wuxuu yiri isdaji gabadha aniga ba aabaheed baan ahay way caafimaad qabtaa. wuxuu igu yiri muslim ma tahay haa baan iri. sheeko dheer kadib wuxuu ii sheegay inuu isagana muslimay intuu gabadha la soo tagin. wuxuu yiri markaan kala tagnay ayaan waxaan go'aansaday in gabadhaydii islaamnimada ku barbaarto. waxaana ka cabsaday haddii aan kuu sheego inaad iga aqbali weyso. sidaas daraadeed ayaan ula soo dhuuntay. aad buu igu farxay inaan islaamay. shaqadiisa waxay ahayd maamulaha masaajidka xaafadaas. wuxuu igeeyay gabadhaydii oo iskuul xaafada ku yaala dhaganayso. oohin iyo farxad dheer kadib Allah ayaa ducadeydii aqbalay. aan soo koobo sheekada way isku laabteen alxamdulillah. ilaah baa kala siiyay 2 wiil kale. waxay si farxad leh u degan yihiin magaalada Mombasa. gabadhana waxay bilowday ganacsi Kenya iyo China u dhaxeeya. isagana waa mu'adin ka mid ah masaajidada ku yaala Mombasa.